talooyin ku habboon inuu diraaseeyo ruux kasta oo doonaya inuu siyaasadda ku soo biiro. Michael Grant ayaa talooyinkan siiyey nin dhalinyaro ah oo waayo aragnimo bidaya ayaa go'aansaday in inta aanu howlaha siyaasadda lugaha la gelin uu talo iyo tusmayn waayeelnimo weydiisto siyaasigan rogcadaaga ah ee Michael Grant. waxaana soo koobaya nuxurkii taladii uu bixiyey oo ninkan dhalinyarada ah uu siiyey. waxaana uu ku bilaabay sidan: inta aadan siyaasadda gelin waa inaad jawaab u hesho sababta aad u doonayso in aad siyaasi noqoto. ha ku kadsoomin beenta ay dadka qaarkood ku andacoodaan ee ah inay doonayaan in dalka la wanaajiyo, in dadka wax loo qabto. siyaasadda u gal himilo fog, haddii ay doonto ha noqoto mid mararka qaarkood lagu qoslo ama lala yaabo, waase in aanay noqon taas caadada noqotay ee aan soo xusay. siyaasadda ha u soo gelin inaad maal ka hesho, waxayse ku fiican tahay marka hore inaad maalqabeen tahay ama aad iska ladan tahay. waa mid aad kuu anfici doonta, kaa difaaci doonto khiyaanooyin iyo inaad ceebo ku dhacdo. siyaasadda ha gelin haddii aadan u bislayn loolanka iyo dagaalka siyaasiga ah. dhaliisha iyo weerarka siyaasadda ee lagu soo qaadayana ha u qaadan in adiga qof ahaantaada loo dalleeyahay, balse u arag in keliya booska aad joogto lagaa cidhiidhsanayo ama lagugula loolamayo. siyaasiga guulaysta waa kan kala sooci kara qofka mucaaradka ku ah siyaasaddiisa ama loolanka xilka la xidhiidha kula jira iyo qofka cadowgooda ah. ha noqon daawade ee noqo ciyaaryahan. siyaasadda ha ku noqon sida qof shaqaale ah, hadba wixii loo diro qabanaya, xaalka guudna dusha ka daawanaya. siyaasaddu waxay meherad u tahay dad aan mar keliya ka daalayn dhaleecayntaada iyo dhaliisha fikirkaaga. marka ay siyaasadda tahay, laba jid oo keliya ayaa kuu furan: wax iska dhici ama dhabbada cagta saar. ka bax siyaasadda. weligaa iska jir in mucaaradkaagu ay sheekadaada iyagu ka sheekeeyaan. haddii aadan adigu naftaada u hadli karin, ka joog siyaasadda oo shaqo kale iska raadso. haddii aadan difaaci karayn noloshaada shakhsiga ah marka ay dadku ku soo weeraraan, waxaa jira nololo kale oo badan oo aad dooran karto, ee iska raadso taas. ayaan u baahnayn isqaawintaas mutuxan. haddii aad doonayso inaad noqoto ruux xaqiiqda ku socda oo u qalma kalsoonida dadka, waa inaad naftaada adigu yeelataa, hanataa ugu yaraan inteeda badan ama taladeeda gacanta ku haysaa. John Kerry markii uu ahaa musharax madaxweyne ee uu la tartamayay George Bush, waxa uu dhibano u noqday weerarkii siyaasiga ahaa ee la xiriiray taariikhdiisii dagaalka Vietnam. sababta uu u jabayna waxay ahayd isaga oo iska caabin kari waayey dhaleecayntii ka dhalatay markhaatigii foosha xumaa ee uu golaha koongareeska hortiisa ka furay markuu ahaa laba xidigle da'yar oo markaas uun ka soo noqday dagaalkii Vietnam. waxa uu kaga sheekeeyey waxyaabihii dhibta badnaa ee uu ku soo arkay xeradii Mekong Delta ee lagu hayay maxaabiistii dagaalka. Kerry waxaa lagu haystay hadallo uu ka sheegay dagaalkii Vietnam oo u muuqday inuu Maraykanka ku dhaleecaynayo gelitaankii dagaalkaas iyo sidii uu u maamulayba. Kerry wuxuu awoodi kari waayey inuu sheegto cudurdaar uu xaq u lahaa, laakiin may dhicin. waxaan ogahay in dadku wax kasta ka cafiyi karaan musharaxiinta, laakiin waa haddii ay iyaguna u dagaalamaan xaqa ay u leeyihiin inay jiraan oo ay dadka ka samaystaan cafiskaas. siyaasadda la iskama dhagaysto, la iskumana dhaliilo dood iyo xujo niyad wanaag iyo daacadnimo ku dhisan. dadka ku dhaliilaya inta ay wax ka sheegayaan hadalka aad odhanayso waxaa ka badan inta ay dhaliinayaan xaqa aad u leedahay inaad wax sheegto shakhsi nacayb dartii. haddii taas shaki kaaga jiro, bal waxaad eegtaa liiska laba wajiilayaasha, danaystayaasha, beenaalayaasha iyo dadka shakhsi ahaan liita ee aadan ku arkayn wax lagu aamino, haddana dadka codka mutaysta oo la doorto. tusaale haddaan u soo qaato Nixon, madaxweynihii 37 ee Maraykanka, oo ahaa ruux ay codbixiyaashu kalsooni buuxda u hayeen, iyaga oo haddana si fiican u garanaya qofka runta ah ee uu yahay. Nixon waxa uu ahaa nin madmadow badan ku jiro, balse yaqaana dadka sida looga faa'iideysto munaafaqad badan. aan ku soo kooba waxa uu ahaa nin codbixiyaasha un la mid ah, waayo markii ay isaga eegeen ayay sida muraayadda isaga dhex arkeen, markaas ayay isaga jeclaadeen. hubi in fariintaadu ay sida aad u rabto u gaarayso dadkaaga. sababta ugu badan ee dhaliisha keenta ma aha fariinta uu siyaasigu gudbinayo, balse waa mar kasta ceebtu
waa cidda uu sii marinayo fariintiisa ee dadka u gudbinaysa. dadka ku dooda in siyaasaddu jilid tahay waa ay khaldan yihiin gebi ahaanba, waayo jilaagu qof shakhsiyad kale ayuu matelayaa, laakiin siyaasigu naftiisa ayuu u taagan yahay. laakiin jilaaga iyo siyaasigu waxay isaga eg yihiin waa in labadooduba ay masrax la wada daawanayo taagan yihiin. haddii aad magac iyo xurmo horay ugu heshay, guulo aad kaga gaadhay shaqooyin kale oo aad horay u soo qabatay iyo xirfad aad leedahay sida saxaafadda, dhakhtarnimo, askarnimo ama ganacsiga, ha u qaadan inaad ula soo guuri karto siyaasadda oo sidii hore aad guul uga gaari karto. siyaasaddu ma aha madoorsoomo leh go'aamo mar inta la qaato ebed lagu taagnaan karo. waa subax kasta iyo isha ay leedahay ku go'aan qaado. siyaasiga guulaysta waa kan kala yaqaana marka ay tahay inuu ku qanco jabka rootiga ah iyo marka ay tahay inuu ku adkaysto muufada warshadda oo dhan la wada siiyo. waa kan kala garanaya inuu ku dhaganaado aragtidiisa iyo inuu go'aankiisa socodsiiyo, iyo marka uu ku qasban yahay inuu dadka dhagaysto. cidda uu siyaasiga dimuqraadiyad lagu soo doortay daacadnimada dhabta u hayo si runa ugu abtirsado ma aha xisbiga, xitaa ma aha mabaadi'da lagu soo doortay, balse waa habraacan musuqmaasuqa lagu kasban karo ee siyaasadda la yiraahdo. sidaas awgeed waa tan taladeeda u dambaysa. siyaasaddu ma aha jid qurun ah oo xun oo lagu gaaro ujeeddo la leeyahay balse waa nolol iskeed marka ay tahay sharaf badan. ilaa aad jeclaatana siyaasadda aadan si fiican wax uga qaban karin. anigu guul kama aan gaarin, laakiin adiga waxaan kuu rajaynayaa inaad guul ka gaarto siyaasadda. waxaan in yar idiin sawirayaa taariikhda iyo shakhsiyadda siyaasigan rugcadaaga ah ee talooyinkan bixinaya. magaciisu waa Michael Grant. waxa uu dhashay sanadii 1947. waa qoraa, aqoon-yahan, siyaasi hore, hal abuur iyo saxafi u dhashay dalka Canada. waxa uu horay u ahaan jiray hogaamiyihii xisbiga Liberal Party ee dalka Canada 4 sano oo u dhaxeeyay 2008 ilaa 2011. waxa uu ahaa hogaamiyihii xildhibaanada mucaaradka ee golaha baarlamaanka. sidoo kale waxa uu shaqooyin sare ka soo qabtay jaamacadaha kale ah Cambridge, Oxford, Toronto iyo Harvard University. Michael Grant oo dalka Ingiriiska ku noolaa intii u dhaxaysay 1978 ilaa iyo sanadii 2000, waxa uu ahaa saxafi caan ah oo ka howlgala telefishinada iyo idaacadaha. waxa kale oo ka mid ahaa tifaftirayaashii wargeyska The Observer ee ka soo baxay dalka Ingiriiska. sanadkii 2006 ayaa Michael Grant loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalka Canada. isla sanadkaas ayuu u tartamay hoggaanka xisbiga Liberal Party. laakiin jagadaas waa looga adkaaday, inkastoo markii dambe loo gortay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga. sanadii 2008 markii la gaaray xilligii doorashada ayaa gudoomiyihii xisbiga Stephen Dion si uu doorashada ra'iisul wasaaraha uga qayb galo uu xilkii gudoomiyaha xisbiga Liberal Party iska casilay, taasoo Michael Grant fursad u siisay inuu noqdo gudoomiyaha ku-beelgaarka ah ee xisbiga. waxaana uu xilkaasi sii hayay ilaa sanadii 2009. dhirbaaxadii ugu xumayd ee Michael Grant ka soo gaartay siyaasadda waxay ahayd fashilaadii ka soo gaartay xisbigiisa ee keentay in golaha baarlamaanka oo uu awood ku lahaan jiray doorashadaasi uu ka noqdo xisbiga saddexaad, taasoo lagu tilmaamay inay tahay barta ugu madow ee taariikhda siyaasadda ka muuqata ilaa maanta, maadaama oo loo tirinayay inuu qayb ka yahay fashilaadii soo gaartay xisbigiisa ee keentay in si aan caadi ahayn looga tiro bato kuraasta golaha baarlamaanka. ugu dambeyntii 25 bishii shanaad ee 2011 ayuu Michael Grant iska casilay xilkii gudoomiyaha xisbiga. markii guuldarooyinkaasi siyaasiga ahi dhowr jeer isaga dambeeyeen, Michael Grant waxa uu isaga baxay gebi ahaanba siyaasadda. wuxuu u leexday dhinaca waxbarashada. wuxuu bara ka noqday jaamacadda Toronto. waa Cabdirasaaq Jubbo oo idin leh intaan dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.